caawi please. Okay, abaayo waa dareemaya dhibaatada ay leedahay marka maxaa la dhihi jiray naasaha gazayd weeyihiin dharka aragtid ma xiran kartid sida aragtid uma labisan kartid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaashii Naciima Tahliil waxaan jeclaystay maanta inaan kaga soo jawaabo commentiyadiini ay soo weydiiseen su'aalaha. waxaan ka bilaabayaa gabadhan Maryan Saciid Cali insha Allah waxay tiri abaayo aniga haddaan bilaabo in aan iscaateeyo dhig yaraan ayaa igu dhacdo. abaayo waxaa laga yaabaa inaad cuntooyinka dhan iska xirtid wixii fitamiin iyo nafaqo korkaaga u lahaa inaad joojisid marka iscaateynaysid. taasna insha Allah video dhan ayaan kuu soo sameynayaa adiga iyo dadka kale oo dhibaatadan la kulma mar walba. micnaheeda ma aha haddaa iscaateynaysid inaad cuntooyinka dhan iska jartid waxyaalaha la cuno iyo sida oo dhiigaaga lagu kordhiyo adigoo iscaateynaya insha Allah. su-aasha ku xigtana waxaa iska leh Nasra Ducaale. abaayo waxay tiri gabadhan can I use hot water when you breastfeeding. waxaan u fahmay biyo kulul ma cabi karaa haddii aan naas nuujinayo. okay waxaa cabi kartaa biyo kulul haddaysan lahayn wax kale oo filtera ama aad wax kale ku darin. biyo kulul waa cabi kartaa oo iska qandaca subaxii ama habeenkii ama duhurkii waqti kastoo aad jaanisaysid insha Allah wax dhibaataa ma kaa soo gaarayaan ilaa idmo. okay waxaa ku xigto gabar kale oo la dhaho Nuurto. waxay tiri jimicsi guriga ayaan ku sameeyaa ma buurni mana rabo in aan naaxo laakiin xagga breastiga ayaan u weynahay badanaa waxaan sameeyaa reduce oversize breast waxaana iskama bedelin caawi please. okay abaayo waa dareemaya dhibaatada ay leedahay marka maxaa la dhihi jiray naasaha gazayd weeyihiin dharka aragtid ma xiran kartid sida aragtid uma labisan kartid. insha Allah taas aniga way soo martay anaana maxaa la dhihi jiray kaaga sheekeynay sida u yareeyay. insha Allah video gooniya u soo sameynaya waxaan rajeynayaa Ilaahay inuu ku guuleeyo. waxaa ku xigo Fatxi. gabadhan waxay tiri umul ayaan ahay ma ordi karaa. abaayo umul haddaa tahay ma u malaynaa inaad ordi kartid. insha Allah waxaa ku dadaashaa cunugaaga iyo naftaada in aad maxaa dhihi jiray waqti siisid marka hore inta aad umusha ka bixisid. marka umusha ka baxdid insha Allah wixii orod ah iyo wixii kale markaas waa sameyn kartaa. also waxaa la dhahaa 6 weeks check up. anagana Soomaalina waxaa dhahnaa 40 bax. 40ka markaa ka baxdid maxaa dhihi jiray waxaa rabtid waa sameyn kartaa markaas because hada minkaagii haduu baby ka soo baxay wuu jilicsan yahay wali iskuma aruurin sidii laga rabay ma noqonin ilaa dhakhtarku uu mar labaad ku jeegareeyo oo inuu maxaa dhihi jiray wax walba positionkooda ku soo noqdeen. please ha isugu dhawaan wax exercise ah iyo wax kale insha Allah. waxaa ku xigta gabadhan kale waxay tiri abaayo muhiimiya in aad haysatid miisaanka cuntada lagu cabiro mise waa qiyaasi kartaa. abaayo ma u baahnid haddii aadan rabin inaa maxaa dhihi jiray korkaaga dhan aan masal ka dhigtid oo 6 pack soo saaratid markaas cuntaada waa inaad controlshaa waxaa cunaysid. laakiin haddii oo aad rabtid like gabadh iska caadi ah inaad noqotid oo normal weightkeeda caadiga ah cuntada waa qiyaasan kartaa. mana u baahna inaad maxaa dhihi jiray miisaan saartid 100%. weligay miisaan ma saarin jirka aan rabin aniga waa helay because waxaan fiirinayay saxanka cuntada aan saarayo marba waxaa u badin jiray qudaarta. cuntadana waxaa cuni jiray 5 waqti iyada oo wax yar aan cunayo mar walba insha Allah saas sameeyo. halkan waxaa uga mahadcelinayaa gabdhaha iyo wiilasha iyo asxaabta dhan dadka ii soo wada qora commentiyada fiican oo wanaagsan oo ilaah abaayo hore u soco. ma sha Allah barnaamij fiican waa noo soo badi insha Allah waa idin soo badinayaa. waxyaalaha kale rabtiin isoo weydiiyo sida maxaa dhihi jiray aniga badanaa research aan sameeyaa waxaan rabo waan raadiyaa waa soo akhriyaa kadib maxaa dhihi jiray dadka ummadda u gudbiya ama anaba practice ku sameeyo noloshayda oo aniga wixii i anfaco ayaan jeclaa dadka inaan u gudbiyo. marka insha Allah waxaa jeceshihiin oo kale waa isoo weydiin kartiin. hadduu Ilaahay idmo anigana wixii aan idinku dhaamo ayaa idinka caawinaya. khayr ayaa idinkaga tagay. Assalaamu calaykum.